dhawaantan waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo oo ka dhacay shirkii amniga iyo khayraad wadaagga oo dawladda dhexe oo adigu hogaaminayso iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalkuba ay goobjoog ahaayeen qiimeynta leeg ama macnaynta leeg ayuu ugu fadhiyaa dadka Soomaaliyeed shirkaas isaga ah waxa ka soo baxay sidee si dhaqangal ku noqon karaan aragtida waa saa sheegtay waxaan uga hadlaynaa masiirkii dalka madaxweynayaashii meesha aan isugu nimidna runtii waxay muujiyeen xilkasnimo iyo mas'uuliyad iyo leadership ayay muujiyeen inkastoo muddo ay nagu qaadatay oo habeeno badan aan u soo jeednay dhawaan mudan madaxweyne ama toddobaadkanba waxaa dalka yimid oo muqdisho soo booqday ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo ka jawaabay casuumaad nolol sheegay inaad adigu markii hore u fidisay xaqiiqatan shirkan iyo safarkan oo Prime Minister Ethiopia Dr. Abiy oo ku yimid Soomaaliya wuxuu ahaa guud ahaantiisa qodobka ugu hadalhaynta badan arinta heshiiska ama heshiiskan aad adigi ra'iisul wasaare Abiy aad isla gaarteen ee ku saabsan dekedaha mudan madaxweyne tukaraq deegaanka la yiraahdo waxaa dagaal ku dhaxmaray ciidamada isku hor fadhiyaan Somaliland iyo Puntland dawladdu door noocee ah ayay ka qaadatay si loo baajiyo dhiig kale inuu sii daato waa arintooda waa dhex galay waana la hadlaa si joogtaan la hadlaa waana isku daynaan runtii hadalsiiyo marmar waa ku guuleystay waxa kuugu jiray ballanqaadyadaadii inaad garsoorka shaqo badan ka qaban doontid ilaa hadda maxaad dhihi kartaa waa laga qabtay dhinaca garsoorka arrintan waxaan leeyahay waa ku yara daahnay waxaa lagugu xantaa inaad marka ay waddanka crisis ka jiraan ama qadiyado u baahan in madaxweynuhu uu ka hadlo ama uu codkiisa la maqlo ay ka jiraan waddanka inaad ka aamusto oo aad waqti dheer ay qaadato in warkaaga la maqlo ama aad bulshada ka qanciso arrin u baahan inaad adigu ka hadasho madaxweynuhu waxba kama bilowdaan way isku dhamaadaan madaxweynuhu ma hor ordi karo shaqada maxaa yeelay haddii isagu uu hor ordo oo wax laabaan xagee lagu noqonaya macnaheedu waxay tahay madaxweynaha wax uu leeyahay oo meesha wax ka bilowdaan waxay tahay magacaabista prime ministerka macnaheedu waxay tahay prime ministerka ama ra'iisul wasaaraha yaa mas'uuliyadda xukuumadda iska leh